waxaan aad u jeclaa inaan madaxweynaha arko qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo xaqiiqdii xafiisyo kala duwan iyo agaasimayaal kala duwan iyo shaqaale kala duwan waa la kulmay laakiin dadka ugu badan waxay weydiin jireen madaxweynaha ma lacag baad ka rabtaa ma mareexaan baad tahay yacni iyo waxyaalo aan markaasi dhiirigelin ama ku faraxsanayn. gabadhan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Felis Saalax Axmed waxa ay ka timid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolka Wardheer waxa ayna nolosheeda qatar u gelisay sidii ay marun ula kulmi lahayd madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. isla waqtigii waxa la geeyay Jiracow xabsiga Jiracow oo leegu xiray Jiracow waxaan ku xirnaa 1 bil iyo bar 3 sano iyo bar ayay dadaal ugu jirtay sidii ay ula kulmi lahayd madaxweyne farmaajo waxa ayna sameysay farsamooyin ay islahayd waxay ku sahlayaan la kulanka madaxweynaha balse qaarkood ayay xabsi bilooyin ah ku mudatay sida ay inoo sheegtay. Felis oo nagu soo booqatay codka bariga Afrika ayaa nooga sheekaysay qayb kamid ah dhacdooyinka ay la kulantay muddadii ay madaxweynaha raadinaysay. waxay arintaas yahay waxaan maalin ku go'aansaday dadka baan shargareeyay sida madaxweynaha u arki lahaa asxaabta kala duwan waxay dhahan Felis video iska duub fariin u dir laakiin inta baan ku soo daalay laakiin markani waxay ahayd go'aankii ugu dambeeyay aan ugu tagi kara madaxweynaha ama anigu rajayn dhigi karay markaas waxaan sameeyay inaan process sameeyo aan dhaho qorshahan sameeyo Felis qorshahan ugu tagi kartaa madaxweynaha qorshahaas uu ahaa inaan dhaho madaxweynaha waxa jirta ballan qaad uu sameeyay sida qarax oo kale inuu qofkii qarax sheega inuu madaxweynaha loo geyn karo oo madaxweynaha arki karo laakiin anigu qarax ma heli karin qaraxna ma keenayn laakiin waxaan isii dad kuwan kala aad sameeyay madaxweynaha waa lagu geyn karaa tilka waxaan isii Felis waxaad sameyn kartaa adeerka xildhibaanka waad u tagtay waxaad dhigi kartaa hadii aad adeerka waxaad dhigi kartaa adeerka inaad niman tiraahdo waa way adeegsadeen niman waxay dhaheen nimanka adeerka dil oo qarax yani gurigiisa geeyo kale hadii aad tiraahdid niman baa u dhiidaatay aniga waxay dhaheen adeerka dil oo kale dawladdan la waraagto la shargareyso yani waxay ku arkeen qof wanaagsan oo badbaadinaya adeerkiisa nafsadiisaba oo dadka dhiirigelin u sameyn kara marka just kalena madaxweynaha waa lagu geyn karaa waxaan tagay gudoomiye degmada waa bari ahayd oo ii dhaweey markaasi waxaan u tagay taliyihii halka joogay taliyihii waxaan u sheegay inaan taliye niman ii dhaarteen laba nin ii subaxii saaka ay ii yimaadeen ugu dhahan adeerka xildhibaanka soo dil oo gurigiisa qaraxgee anigana aan soo shargaray waxaan rabaa in adeerkan ii badbaadisan anigana ii badbaadisan nafsadeyda sababta nimankaas way ii dhaarteen anigana way dilayaan adeerkina way dilayaan taliyihii wuxuu igu yiraahday haye waan ku badbaadinaynaa nimankii halkii joogaan waxaan ku gurigayga meel u dhow igu ballameen 5 saac oo birito jimca ahayd igu ballameen halka igu imaw igu dhaheen 5 saac kadibna baan rabaa inaan laabti u qaado laabti guriga u geeyo taliyii wuxuu igu yiraahday waxba hawlwalin ciidan baan kugu diraynaa meeshaan geynaynaa alaabta la qaadaya marka kadibna oo lagu badbaadinaya waxa taa gabar fiican oo madaxweynaha loo geynayo xaqiiqda waan farxay oo waxay ahayd fursadii ugu qurux badnayd aan arko markaasi yani waxaan isir madaxweynaha oo lagu geynaya laakiin ma isdhahayn ba uu isbedelay wax walba markii 5 saac la gaaray taliyii wuxuu u diray ciidan dhar cad ah meeshii baa la geeyay oo lagu daashay anigana waxa lagu yiri meesha fariiso si nimanka kugu yimaadaan 5 saac markii la gaaray nimankii waa la waayay sababtoo nimanku wax jirma bay ahaynba ciidankii way waareereen waxay isdhahan maxay tahay wax khaldan gabar lama soo wicin lamar lagama hayo nimankii mana aysan imaan aniga waxaan isiri Felis sideed uga badbaadaa sheekadaan oo dhex baxdaa madaxweynaha lagu geeyaa telefoonkaygii baan soo qabsaday dhigtaan saartay waxaan isiri waxa ay nimankii ay soo wacay waxay iga soo waceen lambar ah barigaas waxaan maqli jiray markaan imid Muqdisho waxa jira lambar oo al-shabaab dadka soo wacaan yani argixisada ama waxaas kale lambarkii baan isiri Felis la wadaag marka lambarkii baan dhigta saaray waxaan ay nimankaas way soo waceen waxay iga soo waceen lambar ah waxay igu dhaheen waa fashilan sheekadaadii niman baad u sheegtay kumana hirgaleys waxaad sameysay waan ku dilaynaa camal haddaad sheekadii aad sheegtay waan ku dilaynaa ciidanku ay soo kaxeen xaafadeedii bay keeneen waxay dhaheen insha Allah waxba ma dhacayaan nimanka aniga keenayna oo ku badbaadinayna isla waqtigiiba adeerkay oo markaas baxay oo yimid yimid oo soo laabtay adeerkii wuxuu yiraahday gabadhani waa al-shabaab nimankiina ayada la shaqeysa hadii hadda keen weysana ayada la dilaya oo yani loo haysana ilaa ay keento nimankii dawladda ku saldhiga ay soo wacay anigu gurigeyga jooga telefonkayga soo waxaan xigeen Felis xagee joogtaa waxaan ku gurigan jooga taliye noo imo beeleen degmada noogu degmadii baan ugu tagay markaan degmadii ugu tagay waxay igu dhaheen adeerka ba dacwo ku soo dacweeyay wuxuu dhahay gabadhaasi waa al-shabaab waxay la shaqaysan nimanka al-shabaabka nimankii baa laga rabaa meesha aad geysay xaqiiqada anigu nimanka ma aqoon waxayga dhan waxaan anigu suuqan keensaday
waxaan ku taliyay aniga nimankaas ma qameel jiraan mana garanayo sababta aniga waan waayay nimankaas aniga in la xiro waan rabay laakiin wuxuu igu yiri adeerka uu soo dacway wuxuu ni jirco loo gudbay gabadhaasi isla waqtigiiba waxa la geeyay jirco xabsiga jirco oo leegu xiray jirco waxaan ku xirnaa 1 bil iyo bar Felis ayaan weli ka quusan la kulanka madaxweyne Farmaajo oo muddo 3 sano iyo bar ah ay raadinaysay waxa ayna haatan dalbanaysaa in loo fududeeyo sidii ay madaxweynaha ku arki lahayd Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye codka bariga Afrika Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom